السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان هويوينك igu xiran soo dhawaada waa mar kale iyo muuqaal cusub muuqaalkan muuqaaladii hore in badan ayuu ka duwan yahay waxaana igula wadaagi doonaa haduu Rabbi idmo waxyaabo insha Allah caruurteena wax badan u tiri doono markasto waxaan ila wadaagaa waxyaabo aan isdhihi karo caruurta Soomaaliyeed kuriimadooda iyo maskaxdooda inta waxyaabo badan ay ka bedeli doonaan marka muuqaalkan waa muuqaal tayale insha Allah waxaan rajeynayaa inaad ka faa'iideysataan meel walba joogtaan halkan waxa uga jeedaan sabuul ama galeyda markii ay qoyan tahay aysan si fiican u qalalin oo laga soo guro beerta waxa loo yaqaanaa sabuul marka galeydan bajaqleyda ah oo qoyan waxay aad ugu fiican tahay kuriimada caruurta qaasatan dhallaanka yaryar oo jiro 6 bilood ilaa iyo 3 sano aad bay lafooda u korisaa aad bay miisaankooda u siyaadisaa aad bay xanuuno badan oo ku soo fool leh uga difaacdaa jirkooda ku jiro maadooyin qani ku ah difaaca caruurta korna u qaado kuriimadooda hooyo kasto meel walba ay joogto muuqaalkan ha ka faa'iideysato adinkana la wadaaga hooyooyinka kale oo aan ku xirnin channelka waxaana kula wadaagi kartaan inaad u share gareedaan intaas ka bacdi waxaad u sameey kartaa insha Allah oo maanta muuqaalkan diiradda aan ku saari doonaa qaabka sirilaag looga sameeyo galeyda marka loo yaqaano sabuulka ama galeyda qoyan oo laga soo guro beerta intii aan la fanjalin ama hadii kale ay ku dhagan tahay sabuulka waxa la yiraahdaa baalkan usha camal ah oo taagan oo macnaha qaabkan u sameeysan qof walban uu garanayaa Soomaali ah wax waaye mana lacag badno wax yar uu jooga qiimihiisa laakiin fawaaida ku jiro oo caruurtaada aad ugu fiican aad u sareeyaan lacagtu joogo iyo waxyaabaha laga helo wax isku dhigma maaha lafaha ilmahana si wuxuu u koriyaa ما شاء الله تبارك الرحمن إنما أن عادي أهين أو وحول بقد أمر مكرتد إن كلية إجماع أهن إن ففاهين أو حيسين كتشرت لكن وحي إجتهاي إن أني موتشيو واحترك أولي هاي إن صبول كان لفها haddii aad u baahan tahay lafaha ilmahaaga in uu kuugu koro sida ugu quruxda badan caruur Soomaaliyeed ay u kori karaan ugu dadaal sabuulkan nuucyo badan ayaa loo sameeyaa qaabab badan ayaa ilmaha loo siiyaa qaabka ugu horeeya maanta insha Allah ka hadli doono waxa waaye sida sirilaag aad uga sameey kartid af bilow subaxi aad uga dhigi kartid ilmahaaga wax badan oo natiijo ahna aad ka arki doontid haduu Rabbi idmo ugu horeyntii asagoo fanjalan ama hadii kaleeto galey caadi ah oo sabuulka laga fufujiyay oo jilacsan ayaa waxa ka heli karta suuqyada ayaga diyaariyaan waxa ka soo gadanaysa hal koombo ama hal madaal amal guriga keensanay waad iska dhaqee waad nadiifinay ka bacdi waxaad sameynaydaa waxaad ku qalajinaydaa ofinka ama dabka caadiga ah ayaad ku qalajinayda ilaa xooga uu ka noqdo yellow oo guduud xigeen ah oo ka noqdo ka bacdi banaanka dhigaysa markuu uu macnaha qaboobo in yaro kale ayaa banaanka sii dhigaysa si uu u adkaado ka bacdi waxaad sameynaydaa haduu Ilaahay idmo waad u shiidaysaa oo waxaad uga dhigaysaa blenderka ayaad ku shubeedaa wuxuu ku noqonayaa sida mushaarida camal asaga iyo waxaad isku darsanaydaa bariis cadaha wadanka ka baxo ama bariiski markaas ku sahlan oo caruurta quseeyo ma fahamteen bariisyada ilmaha ama bariiska bariis cadaha loo yaqaan oo wadanka ka baxo bariisyada kalena waa ku sameeysan kartaa wax dhibaa ma laha laakiin bariisyadaas ayaa aad u wanaagsan labadaas isku darsanaydaa haddii aad istiraadid mashiinkaaga kuma shiidi karo waxaad sameey kartaa galeyda caadiga ah oo maxaa la yiraahdaa qalalan markii sabuulka ay ka tagto oo in badan ay taasho banaanka way adkaanaysaa markay adkaato ayaad soo qaadanay
makiinadaha caadiga ah ayaa geysanayda ama guriga ayaa ku diyaarsanaya intaa dhaqatid oo nadaafadooda iyo waxooda dhan iska kontirooshid ayaa ku diyaarsanaya waxaad ayada iyo bariis ayaad isku shiidaysaa kabacdi markii ay cabaar banaanka taalo ee qalasho ayaa waxaa ku shubanaydaa dhalo xiran kabacdi cunugaaga subax walbo waxaad siinaydaa 4 qaado caana ayaa ugu darsanay wax kaleeto oo waxa ugu bedeli kartaa yoogad caanaha booskooda subaxii quraac kale intaada siinin ayaad sii kartaa maasha Allah tabaaraka raxmaan waxa ku jira fawaa'id badan ilmahaagan waad ka arki doontaa 2 qaab oo loo sameynayo ayaan rabaa muuqaalkan inaan igula wadaago hooyo kastana ay ka faa'iideysato qaab waa qaabkaas qaabka labaad waa qaabka aad uga dhigi kartid ilmahaaga casho fuul ah ama qada fuul ah waxaad u sameynaysaa sabuulkan waad soo iibsanay asagoo finjilan ama hadii kaleeto diyaarsan ayaad soo iibsanaydaa jilacsanna waa inuusan adkaanin waad dhaqanee markaad dhaqatid waxaa ku diyaarsanaydaa weel ayaa ku diyaarsanay ugu tala gashay in markaas qudaarta kale aad kula ridatid waxa kaleeto aad soo qaadanayda hilib hadaa heli kartid ama chicken ama kalluun ayaad soo qaadanay waxaan hadda la diyaarinayo aan sheegayeen ilmaha 8 bilood jiro ayaa la sii karaa ma fahamtay ilaa wixii ka weyn maadaama hilib uu ku jiro hilib ama chicken ama kalluun saddexdaas kii aad heli kartid ayaa ku darsanayda kabacdi waxaad sameynay qudaarti markaas aad heli kartid karootada bocor guduudka bocor cadaha bataatiga bardhada spinachka ama koostada waxyaabahaas oo dhan ayaa ku darsanayda basal waa ku darsan kartaa intaas markaa isku dartid iyo hilibkii waad dhaqi waa nadiifinay kabacdi sabuulkan ama gelneydan bajaqleyda ah oo jilacsan ayaad soo qaadanaysaa 3 qaado ilaa 2 qaado intii markaas cunugaaga qaadkiisa uu la egyahay ayaad soo qaadanay kabacdi waa ku dhex darsanay waxa kaleeto ku darsanayda subaga aad buu ugu fiican yahay caruurta mar walba wax u sameeyaan ugu dara insha Allah kadib digsi fiican oo uumita leh oo macnaha wixii ku burburinayo ku jilcinayo ayaad ku shubanay markaad ku shubatid biyo waxa ku darsanayda 2 bakeeri ama 1 galaas iyo bar ayaa ku darsanay digsiga waad xiree dabka meesha ugu hooseeda geeni ha iska saarnaato waqti fiican saar dabka ilaa ay wixii lafaha ay iska galaan oo si fiican ay u bislaadaan kabacdi ayaad ka dejineen dabka markii uu ku haro biyo yar ama qoyaan yar uu ku haro kadib waxaad sameynaydaa baleendarka ayaad qaadanaysaa ilmahaaga sanad hadii ka yar yihiin oo kale ama sanadii bar ay jiraan oo kale baleendarka qaadanay waa ugu shiidaysaa laakiin sanadii bar hadii ka weyn yihiin waxa ugu burburi kartaa qaado ama midka yar oo qudaarta lagu burburiyo ama makiinada oo usha ah oo caadi qudaarta loo dhexgeliyo ayaa dhexgelinay waa ku burburinaysaa markaa ku burburidid kabacdi waxaad sameynaydaa cunugaaga qado ama waxa uga dhigaysaa casho maasha Allah inaba caadi ma ahan waa wax aad maasha Allah ilmahaaga isbedel dhab ah aad uga heli doontid maxaa yeelay waxyaabo waxa ku jiro nafaqooyin ah isku dheelatiran ah fitamiinad dhameystiran ah caruurtaadana wax badan ka bedeli doono hooyo kasto muuqaalkan markii ay aragto kulay insha Allah way ka faa'iideysanaysaa laakiin hooyooyinka kale oo adinkana asxaabta aalatihiin u sheergareeya si ay uga faa'iideystaan muuqaalkan waa muuqaal in badan aan sugaayay inaan soo gudbiyo laakiin insha Allah maanta ay noqotay in aan ila wadaago maadaama aan iska mashquulay marka gabdho waa kaas muuqaal ka faa'iideysta duu Ilaahay idma cashirada hala dhageysto muuqaalka mar walba aad dhageysatid wax badan kaaga baxaayo laakiin hadii commentiga ay igu soo qortid waxaas ma lagu daraa waxaas maxaa ka wada ay igu soo qortid cashirka inaad fahmina oo qaadanaya mar walba ani waxa waqti u soo gelsho muuqaalada waxa waaye in aad wax ka fahamtaan wixii marka aad dhameystirtid ayaad fahmi kartaa marka fahamtid aad rabtid iska gudbi inta faa'iidada la ka qaado waxaan macnaha faa'iido ku lahayn anima islaahay waa soo gudbinaysa waxaan faa'iido bulshada ugu jirin laakiin inta markaas isleedahay way ku anfacayaan ka qaado marka fahamtid ka bacdin su'aalaad rabtid iga soo weydii waa kaas hadda halkaas oo cashirkii noo maraya wassalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh waa mar kale iyo muuqaalkan xigo oo cusub